bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka raadraaca aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah qaraxyada xiga oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, dagaal xoogan oo ka dhacay xaafado ka tirsan magaalada tan Muqdisho, waan laga dhax bilaabay Somaliland iyo waliba jabhad cusub oo wada Korneel Carre, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sheegay in la diyaariyay ciidamadii isku furi lahaa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, Kenya oo dalbatay in al-shabaab lagu daro liiska argagixisada u diyaar garooba daawadayaal qodobada warka oo dhameystiran. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay maqaaxi ka soo horjeeda xarunta Inji oo ku shaqeeya madaxa xukuumadda Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ee Galgaduud, kaasoo sida la sheegay qiyaastii khasaare kala duwan oo ka dhashay. ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa ayaa la sheegay in maqaaxida uu isku qarxiyay, waxaana wariyaasha ku sugan Dhuusamareeb ay sheegayaan in qaraxaasi uu ku dhintay ruuxii ismiidaamiyaha ahaa, waxaana la sheegayaa in 3 ruux oo kale dhaawacyo kala duwan ay ka soo gaareen burbur xoogan oo maqaaxida ka dhacay. ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa Galmudug iyo Ahlusunna wal Jamaaca ee ku sugan Dhuusamareeb ayaa gaaray halka qarax uu ka dhacay, kuwa oo xiray gibi ahaanba wadooyinka soo galo maqaaxidaasi. magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan wafdi balaaran uu hogaaminayo Ra'iisul Xasan Cali Khayre, weli qaraxaasi ka hadlin hay'adaha amniga ee maamulka Dhuusamareeb ku sugan. dagaal u dhaxeeya ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ee maleeshiyad hubeysan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Suuq Boocle degmada Dharkeenley. dagaalka ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inuu yimid kadib markii maleeshiyad hubeysan ay joojiyeen guri dhismo uu ka socday oo lacag ay ka doonayeen, hase yeeshee dadka guriga loo dhisayay ayaa ku wargeliyay booliska Soomaaliya in dadkani ay rabaan inay baad ka qaataan. xiisad ka dhalatay guriga la dhisaya ayaa shalay ilaa maanta waxay ka taagan tahay nawaaxiga gurigaasi oo ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. ciidamo ka yimid saldhigga booliska degmada Dharkeenley ayaa waxa ay gaareen goobta guriga laga dhisayay, walow la sheegay in kooxihii hubeysnaa iyaga dagaal xoogan halkaasi uu ku dhexmaray. weli lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi u dhaxeeya ciidanka booliska ee maleeshiyadka baadda raadinayay. inta badan Muqdisho waxaa ku soo laalaabta dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyad hubeysan oo aan la garaneyn cidda sida rasmiga uga marqaataan. waan ayaa la sheegayaa in laga dhax bilaabay maamulka Somaliland iyo jabhad cusub oo hogaaminayo Korneel Carre. wararka laga helayo gobolka Sanaag ayaa waxay sheegayaan in guddi ka baxay magaalada Ceergaabo ee waan ka dhax wadaan maamulka Somaliland iyo jabhad cusub ee Korneel Carre uu hogaaminayo oo muddo dagaal ka dhaxeeyay. ciidamo oo wato Korneel Carre ayaa dhawaan degay buuraha Kulmiyo oo ku yaala duleedka magaalada Ceergaabo kadib dagaal ka dhacay halkaasi. waxaana la sheegayaa in waanta ay wadaan guddi qabanqaabo ah oo ka yimid magaalada Hargeysa. odayaal iyo waxgarad ka mid ah dadka Ceergaabo ayaa la sheegayaa inay wadaan inay isku keenaan maamulka Somaliland iyo waliba jabhadan cusub oo hogaaminayo Korneel Carre. warar hordhacaya waxay sheegayaan in Korneel Carre guddiga ay ka codsadeen in muddo 4 cisho gudahooda hubka uu ku dhigo iskuna soo dhiibo, waxaana la sheegay in Korneel Carre arrinkaas uu ka biyadiiday. ciidamada uu hogaaminayo Korneel Carre ayaa ku wada tirsan Somaliland, iyadoo dhowr jeer hore halkaasi ay ku dagaalameen ciidamada Somaliland iyo waliba jabhadan cusub. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in la diyaariyay ciidamadii isku furi lahaa wadooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo ayaa la sheegayaa inay u xiran yihiin dagaalamayaasha al-shabaab, walow mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay socdaalka ku maraan oo kaliya dhanka hawada. amniga kooda ah muhiimadda koowaad amniga leeyahay tilaabooyin fiican oo amniga qaameyn dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ay ugu horeysay mar allaale markii aan loo doortay oo aan dhisnay wasiiradu. waxaan diyaarinay ciidan cusub oo ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaarka u ah booliska gaarka la yiraahdo yaan xareynay oo tababaro xareynay si loogu diyaariyo inay sugaan amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isuna furaan jidadka iyo deegaanada Koonfur Galbeed oo si isugu socon lahaa. ciidan ilaa 1200 yaan tababar u xareynay, tababarkooduna gabagabo yahay dufcaddii ugu horeysay ee dhammays. waxaan kaloo diyaarinay ciidan 1200 ah oo biliis oo hadda tababar u bilaabanayo oo ciidankii ugu horeeyay ahaa 400 oo shabeellada hoose loo xareeyay
waxaan daafuraynaa waa la xareeyey ciidamada gobolka shabeellada hoose oo 2 qaybood waaye 8 baan ugu talagalnay qaybtii koowaad 4 waa la xareeyey wasiirka amniga u xil saaray iyo gudoomiyaha gobolka wayna dhameeyeen wax walba waa mareen 19 bishan waxaa loo furayaa tababarkii waxaa tagayo madaxweynaha dowlad goboleedka asaa furaya tababarkii ugu horeeyay bilaabay waxaan diyaarinay oo hadda hawshooda ay gabagabo tahay ayagana soo dhamaatay ciidan boliis ah oo boliiska gaarka ah oo loogu talagalay 240 kiiloomitir oo baydhabo xamar ay isu jireen oo ayagana la soo gabagabeeyey gaadiidkii iyo qalabkii iyo saldhigyadii ay ku shaqaynayeen la diyaariyay gaadiidkoodana la keenay bil ka hor inta ay yaalaan gaadiidkii ay ku shaqayn lahaayeen ciidanka asaga ahna sida ugu dhaqsaha badan yaa loo xariiraya insha Allah 4 waa la qoray wasiirada gacanta ku hayo bishan gudaheeda la xariiraya tababarka uu bilaabanayo saldhigyo loogu talagalay daymadan biilhakabo leego walaweyn afgooyo intaasoo saldhigya laga soo diray xarumo oo ay fariisanayaan waxayna sugayaan amniga shacabka jidkaas isu gooshayo dowladda waddanka Kenya ayaa dalbatay in al-shabaab lagu daro liiska argagixisada. dowladda Kenya ayaa Mareykanka ka dalbatay in al-shabaab lagu daro liiska argagixisada maadaama dhibaato xoogan ay ku qabaan wadamo ka mid ah Geeska Afrika. al-shabaab ayaa waxay ka dagaalamtaa qaybo ka mid ah qaaradda Afrika gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. waxaana la sheegayaa in dowladda Kenya cabsi xoogan ay ka qabto in al-shabaab weeraro qorsheysan ay ka fuliyaan gudaha waddanka Kenya. ugu dambeynna madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa ka hadlay markii ugu horeysay sababta soo celcelisa in mar walba maamul cusub loo magacaabo gobolka Hiiraan. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in sababta soo celcelisa in mar walba maamul cusub loo magacaabo gobolka Hiiraan ay tahay arrin quseysa gobolka Hiiraan dad Hiiraan dhibaato ku ah ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne. warkii aad ka daawanayseen raadraaca wararka daawadayaal waa naga intaa fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar channelkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka.